mashaariicdan horumarineed ee maanta laga dhagax dhigay deegaanka Naqdabiijo iyo Geedihaan oo ka tirsan gobolka Togdheer isla markaasina ay iska kaashadeen mashaariicdani horumarineed dawladda hoose degmada Burco iyo qurba jooga deegaankaasi waxaana ugu horeyntiiba ka mahad celiyay mashaariicdan horumarineed ee maanta laga dhagax dhigay deegaanka Naqdabiijo iyo Geedihaan hay'tuulayaasha deegaankaasi iyo qaar ka mid ah qurba jooga deegaanka waxaana yiraahdeen mahadna waxaan ugu naqaynaa cidda nagu gacan siisay ee tuulada noo dhagax dhigaysa iskuulka ee naga caawisay ee noo keentay baan mahadle ilaahay baan mahadle anigoo ah gudoomiyihii tuulada Geedihaan halka warbixinta waxaan ka bixinayaa in deyrkan iskuulka Geedihaan maanta la dhagax dhigayo deyrkaas oo iska kaashadeen deegaanka iyo qurba joogta deegaanka iyo dawladdu saas baan ku soo dhaweynaa gola deegaan ahaan qurba joog ahaan dawladda lafteedu iyada lafteedu gacan ku leh in aynu halkan dhagax dhigno iskuulkii magaalada Naqbarwaaqo annagu haddaanu qurba joog ahaan nahay waxaanu ballan qaadaynaa oo aanu ka qayb qaadanaynaa wax allaale wixii hawla ee deegaanadan haday Naqbarwaaqo tahay iyo haday deegaanada kale ay tahay ugu dambeyntiina waxa halkaasi ku dheeraaday ahmiyadda ay mashaariicdan horumarineed u leeyihiin deegaanka Naqdabiijo iyo Geedihaan gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad isagoo kula dardaarmay bulshada deegaanka inay ilaashadaan mashaariicdaasi waxaan u maraynaa qorshahaygu waa in tuuladan iyo Gumbur Libaax iyo Geedihaan baanu laga yaabaa in mashaariic dhawaan ka fulin hadii Ilaahay ka dhigo Gumbur Libaax waxa laga yaabaa saldhig inaan ku dhisnay iyadana waa dhagax dhigi doonaa insha Allah tan iskuul baan ka dhisaynaa Geedihaanna iskuulkeedan deer marin doona mashaariicda insha Allah inay dhaqso u hirgasho ayaan ku rajooynahay waxa loo baahan yahay kaliya in caruurtiinu ay noqoto caruur maaragtay wax garanaysa oo runtii waxay noo qabanayaan maanta inay iskuul loo dhistaan iskuulkaas oo ay maanta magaalada u baahnayd magaalada dhaneen Naqbarwaaqo iskuul hore ma lahayn waxaynu ku amaanaynaa duqa magaalada Burco iyo Xildhibaan Saciid sida ay inoo Barwaaqo Aadan Maxmed magaalada Burco.